هذه قروح كحرا إن برعد بديتا أي كحرا مركا حرين تيلاك بين رودها بصنع أو قرن كينا واحتريا halkaa yara حبسية وين خدقنا ستاندر عالمية واحد سومالان دران هاي باكو حران wadamo shay laga keenaa xiriir intee lag binoo kordhiya markaynu dhaafsanayno maxaynu ka faa'iidnaa wasiir ها دستوركو runtii uu xusay article 106 ayuu ku xusay inay wasaaradda cadaaladdu u xil saaran tahay fulinta go'aamada maamul guddiga cadaaladda waa sidaasoo matalan dee marka go'aan maamul soo saaraan ee garsoore ay bedelaan ama ay garsooro qoraan ama ay xeer ilaaliyo sidaas si leeg bedelaan ama ay qoraan faafinteedii waxa le wasaaradda ayaa leh waxay ku soo saaraan dee ama idaacadda iyo TV-ga iyo maxaa ku dhahay media oo dhan bay sidaa ay ugu faafiyaan waxaanay u qoraan meeshii loo bedelayay bay u qoraan iyo meeshii laga bedelayayba way u qoraan marka taas waa saasay go'aamada way ku dhaqantaa oo way fulisaa su'aasha labaad ee maxaynu xabsigan international standard laga dhigay maxaabiista burcadbeed ku xirantay maxaynu dhaafsanay aynu ka faa'iidnay horta xabsigan in uu standardkiisu sidaa noqdo beesha caalamka ay naga caawisay markeedu horeba dib baa loo dumiyey xabsigeenii waxaa laga dhisay mid dabaqya ah ayaa laga dhisay international standard waxaa gaarsiiyey hay-adaha caalamka ayaa gaarsiiyey xagga burcadbadeedda burcadbadeedda horta sideedaba dee dhibaato ina haysatay bay ahayd cunaqabatayn ina saaran bay ahayd maraakiibta inoo timaada ee dekadaheena timaadee raashinka inoo sita amaba waxyaalaha asaasiga ee kale ee dee caalamka inooga imanaysa dhibba haysatay bay dee haydo ama lagu aftuubi karaayey ama inshurankii lagu qaaliyeeyey ama oo dee sicirka kiilooga bariiska aynu dee iibsanaynaa bay saarayd dhibaatada burcadbadeedu kiiloogay la socotay koobka shaaha aynu cabnaynaa buu la socday dhibaatada burcadbadeedu ay saarantay marka waajib bay inugu ahayd in si arrintaa dagaalkaa looga midho dhaliyo inaynu kala qayb qaadano beesha caalamka inaynu kala qayb qaadano marka dhinacyada aynu inagu kala qayb qaadanayno waxaa ka mid ah kol haddaynaan maraakiib badan oo aynu ku darro beesha caalamka aynaan lahayn oo sidaa dee caalamku ay cid walaba maraakiibteeda u keentay meesha aynaan ugu dari karayn waxyaalaha aynu contribute garaynayno waxaa ka mid ah maxaabiista la qabto ee caalamka gobollada maxaan ku rahdaa aan dee soomaalida ka baxsan lagu xukumo ee lagu qabto oo dad soomaaliyeed ah oo la leeyahay isku dhaqan baatiin isku afbaatiin markaa si iyagana dee ilan xaqooda loo ilaaliyo maxbuuska waana la haynaya haddana xaqiisi baa la ilaalinaya raashin uu cuni karo dad uu afgaran karo meel lagu booqan karo wixii uu xaq u lahaa waa in loo fuliyaa isagiina markaa tii baynu inagu aynu kaga qayb qaadanay horta barnaamijkaa xeerka caalamiga ah iyo dagaalka caalamigaynu ku jirana waa ka mid dhibta ina haysata inaynu dee ka qayb qaadanay inaynu aynu iska dulqaadnana dee waajib bay inugu ahayd markaa inaynu maxaabiista qaban karo haddii la yidhaha idinku waxa idinkaga culays idinkaga hagaagay qabta maxaabiista dee waa inaynu qabanaa dadka kalena ay qabtaan ay xukumaan ay ka hawlgalaan beryaha maynaan maqal baynu malaynaynaa markab laafto miyaa maqasheen beryaha idaacada ka maqasheen malaa muddo sanad iyo dheeraada maynaan maqal weli markab ay burcadbadeed aftuutay wuxuu wax soo gaabanaya marka waa dagaal lagu guulaysanayo oo meesha ka bixi doona waa arrin keeni doonta inuu inshuranku dabeedna uu dee halkiisii ku noqdo oo maciishadu inay inoo jabto haddii aan la yidhaha aynu rajaynayno oo dee aynu dhibtii burcadbadeeda haddii aan la yidhaha ka fursan doono waxyaalaha ay runtii hay-adda UNODC ee aan ka hadlaya waa hay-adda wasaaradda dhisaysa dhismaha wasaaraddu UNODC meesha may joogin dagaalkan ka hor dhismaha wasaaradda hay-adda dhisaysa iyada ayaa dhisaysa dowladda ingiriiskaana fanka bixisay runtii duwalka inaga doonaya inaynu barnaamijkaa fulinana ingiriisku ka mid buu ahaa mar baabay hakiyeen inay dhismaha wasaaradda ay kharashkiisa hakiyeen ay magaranaysaa runtii ay arkeen inay magaranaysaa arrinkii xeerarkii inugu yarraageen xeerarkii aynu burcadbadeedda iyo la wareegidda maxaabiistu ay inugu yarraageen markaa halkaa arrinkaa way qabteen xabsiga hargeysa adiga ka warhaya dhismayaasha loo dhisay ee
askartu ay seexatay ee xagga galbeedka ka xiga waadiga ka warhaya xabsiga Madheera ballaarinta aan warbixintii hore ku daray iyadoo dhisi fulinayso oo mashruuca dee la dagaalanka maxaabiista burcadbadeed imanaya dib u hagaajinta xabsiga dhismayaashii hore Ingiriiska ka tagay ee Madheera wax ka qabadkiisa kabro oo aan isleenahay iyagana ha u gudbaan wax ka qabadkiisa arrimahaasi iyo tababaro la siinayo maxaabiista waxaan leeyahay la siinayo ciidanka arrimahaas waxa wada fulinaya waa hay'adaha iyo barnaamijka burcadbadeed ayaa lagu fuliyaa barnaamijyadana ka warramayay ahaa rehabilitationka ama dhaqan celinta maxaabiista lagu fuliyo hadduu yahay mashruuca samaynta jaajuurka hadduu yahay metal workska ama beer samaynta hadduu yahay maxaan ku raahdaa beer samaynta hadduu yahay digaaga aanu dhaqayniyo incubatorka aanu sugayno hadduu waxyaalaha soo dhameena barnaamijkaas ku taxalluqa runtii ayuu ku taxalluqa barnaamij aad runtii qiimo u leh ayay nagala qabtaan arrimaha oo de waxa inoo furmay bari baan ku mahmahaadhe haddii laba dagaal ay ku wada jirtaan adiga iyo saaxiibka markay rasaastu kaa dhamaato saaxiibka oo dhan wuxuu ugu jiraan dee qasnada waa inuu mid ku tuuraa si lonqori quraa dhacaya uu kaagana u isagay dee dan u tahay marka caalamku inay inagana dee rasaasta qasnadaha bar inoo tuuraan waxoogay markay dagaalka ku jiraan dee waajib bay ku tahayoo si aynu xabsiyadeeni iyo waxyaalaheeni u hagaajino bii'adii aynu wax ku qaban lahayn ama ciidanka badda oo ay ma garanaysaa dooyihii ay dee badda lagu gelayay ay iyana ka shaqaynayaan injineero u keeneen dooyihii ka xumaaday oo dhan wada hagaajinayo si ay badda u galaan waxyaalahaasoo dhan xagga ciidanka badda ay naga caawiyaan xagga maxaan ku dhahdaa maxkamadaha xagga xeerarka dejinta xeerarkan aynu ka hadlayno dhan bay ayay runtii ku shaqo leeyihiin ay naga caawiyaan xagga xabsiyada ayay aad ugu lug jiraan oo trainingkooda iyo tababaradooda iyo maxaan ku dhahdaa environmentka situationka dee maxaabistu runtii ay ku jirto wax ka qabadkooda intaba hay-adaasi way ka shaqaysaa marka dhankaana faa'iida ay naga soo gaaray waxaan filayaa in jawaabtaasi waafi ay ka qaybgeliyay su-aasha weydiiye u tahay guuleed maxamed muuse oo isaguna ka qaybgalayaasha ka mid a guuleed jaamacadda ka socota jaamacadda gulis waayahay kusoo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka wasiirku aad iyo aad u mahadsan xuseen axmed cali cidiid iyo xuseen cabdilaahi iqsime iyo kasoo qaybgalayaasha sharafta leh iyo bahda saxaafadda wasiirka waxaan weydiinayaa madana wasiir hadda goor waxaa dhacay iminka kufsiyo wadadeerado fara badan oo waddanka ka dhaca marka dambiilihii lasoo qabto saldhigii ama jeelkii la keeno ku jira wax lama geeyo muxuu ahaye maxkamadda ama cadaaladda lama horgeeyo dambiilaha markaa waa maxay istaraatiijiyadeenii ka dhigsan arrinkaasi inta badan way xiran yihiin inta badan su-aasheeda labaad guddida cadaaladda mudane wasiir waxaad noo balballaarisaa guddida cadaaladdu ma guddida arrimaha dhulka mise ee tobanka ah mise waa qayb kale muxuahay guddida bal noo balballaari wasalaamu calaykum waraxmat ullahi waayahay wasiirka mudane xuseen axmed caydiid waay bismi llahi raxmaan raxiim kufsi wadareed runtii waa aafo imaka inagu soo korodhay sanadan dambe aad inagu soo korodhay waana aafo u baahan in aad looga howlgalo oo gacan adag lagu qabto waxaa runtii aan ka warhayay in xeer ilaalintu ay qaybisay circular guud circular ama wareegto ay qaybisay oo halkii awel hore kiisaska ciqaabta ah ee fudfudud odayaashu intay ka daba yimaadaan ay dabadda ula bixi jireen xeer ilaalintu ay mamnuucday kiiskii kufsiga ahaa inaan dabad loola bixi karin raagiddeedu iyo raagid la-aanteedu waxay ku xiran tahay dee qofka horta xeer baa ayaa limid garaynaya ama xadidaya inta qofka lagu hayn karo ama saldhig ama rimaal lagu hayn karo xeer baa xadidaya muddadaas waa muddada dee baarista iyo wax lagu wada keeska la habaynayo weeye ama baarayaasha saldhigu ay soo habaynayaan ama xeer ilaalintu ay keeskii dee in cadaymihiisi oo dhami sugan yihiin lagu qancayo waa kiis dheeraan karo oo isagu u baahan karaa qalab aynaan maanta hayninba wuxuu u baahanayaa in dhakhtar soo caddeeyo dhibihii dhacay dhakhtar soo caddeeyo ayuu u baahanayaa
oo dhakhtar buu la gelaya victimkii ama qofkii dhibanahabaa dhakhtar loo diraya warbixin kasoo qoro soo caddeeya meelo qaarkood baa qalab u baahanayso oo aan maanta qalabkiinoo oolinoo runtii caddaynta wax badan ka tari lahaa kiiskana dedejin lahaa marka anigu kuma ogi sabab gooniya oo kiiskaa saldhigyada loogu hayo oo aan maxkamad loo haynin oo ka baxsan inta ay qaadanayso baaristiisu ka baxsan oo sabab kale loogu hayaa ilaa imika ima soo gaadhin kamana war hayo laakiin waa kiis dee nature gooniya leh buu runtii noqonayaayo victimkiina dhan caddayma looga doonayo oo baaris loo dirayo qofkii dhibta geystayna caddayma iyo markhaatiyaal dhan looga doonayo waxaa laga yaabaa inaanu dee meesha uu qofku wax ku kubsanayo markhaatiba joogin ilaa hadduu markhaati joogo ama dad joogo laguma sida qofka dee wax dilaya halkeenna inagoo wada fadhiina dhexdeenna qof toorri ku dhufan karayo dee kana sidoo kale maaha wuxuu la eeganayaa meel madow wuxuu la eeganayaa meel aan da joogin dabeedna markhaatigiiba dhib bay noqonaysaa si loo helo ayay noqonaysaa marka qaabkaa baarista oo wax badan ka tari lahaana qalabkii ayaa runtii naga dhiman waanu weydiisanaa runtii beesha caalamka iyo hay-adaha dhowr goor baanu aada u weydiinay waana rajaynaynaa inay wax ka soo kordhaan kiiskaasi waa kiisas aynu doonayno in gacanta lagu qabtoon dibadna loola bixi karin qalabkii lagu baari lahaana insha allahu inoo soo kordho taa dibadda waa ka mamnuuc waa kiisaskaynu ka mamnuucnay in dibadda lagu xalilo waayo aafadaasi ma harayso haddaynu dhaqan u dirno oo dabeeta uu yidhaahdo darhaadba ina hebel lagu gudbo ina hebel baa iyana sidaa gaadhayo waxba la iskama qaadane dee kana sidii ha noqdo hadday noqoto dee dhiirigelin baabay noqonaysaa marka waa in kiiskaas uu noqdaa inaynu kala reebno oo maxkamadaha ur hadii la yidhaha lagu xalino marka tayada guddiga cadaaladda waxa weeye guddiga 10kii waa guddiga u xil saaran maamulka garsoorayaasha habdhaqanka garsoorayaasha shaqagelidooda dallacsiintooda darajo dhimistooda maxaan ku rahdaa bedelkooda anshax marintooda waa hay-adda u xil saaran inay garsoorayaasha la xisaabtanto maxkamadaha hoose garsoorayaasha maxkamadaha hoose inay la xisaabtanto waa hay-adda u xil saaran marka taana intaasa ka way ka duwan tahay tadee guddiga khilaafaadka dhulka la yidhaah ee dawladaha hoose fadhida ma aha taas tan waxay u xil saaran tahay garsoorayaasha ayay u xil saaran tahay waa ta la doonaya inay anshaxa garsoorayaasha ilaaliso oo runtii aad marka hore shaqadoodu aanay u wanaagsanaan jirin ee ay kiisaskeeda qiimayso ee waxqabadkooda kula xisaabtanto garsooro walba inta kiisuu sanadkaa qaaday iyo ma u xalilay sidii habboonay inta review lagu sameeyo dee ama lagu dallacsiiyo ama lagu casilo waayahay barnaamijka maqal dadkaaga ood kala socotaan telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan u yeedhayaa ka qaybgalo kale maxamed salaan maxamed بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وزيرka iyo marti sharafka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan weydiinayaa wasiirka laba su-aalood su-aasha koowaad waxa weeye waxaa jira in maxkamadaha hoose ee wasaaradda cadaaladdu miisaaniyadda siiso mushahar garsoorayaasha gobolladuna 3 bilood sugaan cadaaladda sugana waa tiri si cadaaladda loo soo marka haya marka cadaalad mushaarka ka raaga 3 bilood su-aasha labaad ayaan ku weydiinaya saacad wasiir weeye waxaa hor taagan fulinta xukunadaha oo xukuumaddu ka midaysan tahay fulintooda ka mas'uulka tahay waxaan siinayaa wasiirka cadaaladda mudane xuseen axmed caydiid wasaaradda cadaaladdu maxkamadaha hoose runtii waxay u saxeexdaa waaranka 3 biloodka ah ayaa wasiirku saxeexaa marka sanadkii 4 meelood loo qaybiyo intii ay yeelan lahaayeen 3 biloodba ayaa maalmaha ugu horeeya bisha 3 biloodka ugu horeysa maalmaha ugu horeeyaba waaranka la diraa la saxeexa processka loo mariya agaasimuhuna iyadoo bilbil oo ayuu 3 biloodba isu raaciyay way isku gaaraan 3 biloodba gobolada fog waxa suurtagal ah in matalan ceerigaabo oo kale ama laascaanood oo kale meelihii aan lacagteenu ka shaqeynayn
baananka marka loo diraabaa inta dee ay broseskaa baanka iyo xisaabaadka guud inay ku yar daahdo waa laga yaabaa laakiin waxa wasaaradda ku habsaama ma aha wasaaraddu bisha ugu horeysa 3 biloodkaba way ka wada baxaan waxaas marka taa intaasan ka odhan lahaa xukuumadda fulinta ah maxaa hortaagan runtii horta fulinta inta badan waxaa u xil saaran wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u xil saaran waayo dee ciidan baa fulinaya marka dee laba qof ay jago isku hayaan ee xaq ay kala hayaan marka xukunku uu dhacee fulin loo diro kiiskaa cidda ay garsooruhu adeegsanayaa waxa weeye ciidankii booliiska halkaa waxaad moodaa runtii sanadadii hore marar badan baynu ka warhaynaayoo dhibi ka dhici jirtay arrimaha dhulka oo booliiska iyo dad iskaga hor iman jireen oo dhimasho badani ay dhimasho ka dhedhici jirtay ama booliiska wax gaari jireen ama dadweyne ay wax ku gaari jireen mushkiladda waxaanu isleenahay waxa furtay xeerkii booliiska xeerkaa booliiska ayaa awooddii bixinaya in qofka sharci darre isku hortaagaa hawl sharciyahoo la fulinayo wixii gaadha inaan qaranku ka mas-uul ahayn waxa kale oo xeerkaasi uu tilmaamaya mas-uuliyaddii loo raaci lahaa qofka askariga ah ee haddii si ka macaah ma khada ah qof aan loogu talagelin uu halkaa wax ku gaari lahaayeen oo isagu aan dhib kala hor iman ciidanka ay wax ku gaari lahaayeenna mas-uuliyaddaana inuu qaranku qaaday xeerkaasaa damaanad qaaday dhibta askariga gaadhana inuu qaranku kafaalo qaato xeerkaasaa damaanad qaadayay waxaan filayaa xeerkaasi weli wuxuu ku jiraa golaha wakiilada waxaan u malaynayaa xilligii uu gaboose wasiirka arrimaha gudaha ahaa ayaa xeerkaasi gudbay oo golaha wakiilada uu u gudbo golaha wasiirada laga ansixiyuu ka gudbay daahidaasaa kolley aan isleeyahay ilaa inta xeerkaasi ka hana qaadayo ee dabeedna maxaan ku dhaha mas-uuliyadihii uu kala tilmaamay sidiisa ay u dhaqan gelayaan waxaynu kusii jiraynaa dee qaabkii hore ee maxaan ku dhahdaa iska uun jiitanka ahayd marka taasi waxaan isleeyahay qayb bay ku leedahay qaybo badan oo maxaan ku dhahdaa aan dee dadka booliiska loo diraye layskaga hor imanayaba aan ahayn oo xukunna dhaceen oo maxaabiista xabsiyada ku jirta qaarkood ama dila lagu xukumay waa jiraan waxaan ogahay qaar badan oo runtii marfuuc alqalama oo aan maanta dilkii lagu filin karayn waxaan ka warhayay inay imika weli qaangaadheen ma hube qaar dadkii weliyudamka ahaa ee la weydiin lahaa in loo qisaasay iyo in kale weli aanay qaangaadhkii gaadhin oo la sugayo ilaa inta uu ka qaangaadhayo in la suga ay tahay kolleyba arrintaas u taalla maxaan ku dhahdaa kiisaska fulinta ahee xabsiyada yaalla waxa weeye arrin ay maxkamadda sare abaabulkeeda inay gasho ay tahay oo ay isugu yeedhaan dhinacyadii dib loo abaabulo oo kawaalanna la yidhaahdo dee lagu qanciyo qofkii inuu dee marfuucal qalamkaa yahay oon lagu fulinayn ee dhankii kale looga wareego wixii kale ee fulinteeda la ambaqaadayana ay tahay in maxaan ku dhahdaa wax laga qabto markaa taasi runtii waa mushkilad qaybaha qaar ay wax ka taagan yihiin oo garowshiyaheeda leh waxaanu rajaynaynaa haddii aan la yidhaa inaanu xeerkaana dhan ka dedejino maxkamadduna ay dedejiso isugu yeedhidii dadka haddii aan la yidhaa dedejiso barnaamijku waa maqal dadkaaga waxaan kusoo dhaweynaya ka qaybgalo kale mukhtaar xasan xisi mukhtaar soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم المسيرك عدالة يوريها أثبت ما سنتين يكسر قيب قلياشة أنت أكيد واحد السلام يا سلامة السلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. استون سؤال بدن سلاح وسير كويتي لكن dadkii ugu horeeyay qaatay hal su'aal baan wasiirka weydiinaya haye saynu ka warqabno maxkamadahayna waxaa ka jira in ay dacwado ku raagaan muddo badan ay socdaan iyadoo saynu ognahay intii xukuumaddu jirtay la sameeyey isku bedel badan oo xagga maxkamadaha ah haday noqoto garsoorayaal cusub oo lagu soo kordhiyo iyo qaar horoo la bedelo sababtu maxay tahay kolba ay usoo noqnoqonayaan inay muddo badan qaataan kiiskii oo laga yaabo inuu fudud yahay sidii loo dhammayn lahaa mahadsantiin waayo bismi illahi raxmaan raxiim
runtii way jirtaa dacwado badan oo raagi jira waa jiraan dhinacyo badan bay yeelan karaysaa sidaan anigu u arko waxa weeye xilgudashada garsooraha garsoorayaasha laftooda qaar badan baan xilgudashadoodu aanay wanaagsanaan jirin oo inta kiisi ay weligood gaadheenba fara lagu tirin karaa oo inta kiisa suun loo dhiibo habsankoodu iska bataa waa jiraan waa arrimaha la rabo inay guddida kormeerka iyo guddiga guud ee cadaaladdu kormeerka guddiga kormeerka ee maxkamadda guddiga cadaaladdu waxay u shaqaysaa guddiga cadaaladda ayay dee usoo kormeertaa oo wixii ay soo ogaato si looga go-aan qaato guddiga cadaaladda uga go-aan qaato ay usoo gudbisaa marka waa hawshaa guddiga kormeerka u taalla ee guddiga cadaaladduna inay tallaabo ka qaada ay tahay ileen garsoorayaasha iyagaa u xil saaran dhinaca garsoorayaasha factor baa ka geli karaa waxaa kaloo dhinac ka geli karaa dhinaca xeerarkan inan habka ciqaabta iyo habka madaniga ah weliba ka madaniga ah civil procedure codeka oo ilaa maxkamadda sare inta laysla taga haddana fulin loo soo celiyo haddana dib ilaa intii dib loo qaadan karo xeerkaasaa iniqa kolba meel ka furaya in dib loola noqon karo oo wixii uu aanu meel uu ku dhammaadaaba ay muuqan waayaan markaa kaana waxaanu isleenahay dib u eegista lagu samaynayo shuruucda ee guddida dib u eegista shuruucdu mas-uuliyaddeeda ay tahay aanu isleenahay ka warhayna qaar inay gacanta ku hayaan inay taasina dhibaatadaas soo afjarto oo de waa xeerar gaboobay oo dhowr iyo 60kii la sameeyey oo aan maanta duruufteennaba iyo dastuurkeennaba la jaan qaadaynin waa in dastuurka la waafajiyaa xeerar somaliland ay noqdaan oo wixii nidaamkeennana iyo dadejintii xeerarkana ay ka qayb qaataan oo anigu waxaan qabaa kiiskaasi hadduu mar gaaro ilaa maxkamadda sare oo 4 darajo maca dib u eegisteeda la isla gaaro oo dabeedna uu fulin yimaado in laga mamnuuco inuu dib u noqdo ama cadaalada ku dhaca ama cadaaladii ku dhicin xukun maxkamadeed waa in la fuliyaa markuu final noqdo waa inuu fulaa marka taasina inay xeerarka aynu sidaa ma garanaysaa wixii luub hoolisay kolba dib u furaayay inaynu ka oodno weeye factor kasta dhinac baan ayaan u malaynayaa jiitano badan oo kolley dadkeenniina waa jiraano dee dacwadaha iyo xaadirkooda iyo imaatinkooduna ay runtii iyagana qayb ka qaadan karaanoo ay tahay garsoorayaashu inay matalan dee marka la maqan yahay ama ballamuhu baaqdaan in ma garanaysa ay tallaabo qaadaan qareennada qaarkood ayaa baaqanayo oo dee laga yaabaa isagoo ku qoran maanta dacwad lahaa inuu dacwad kalaba galo ma garanaysa marka taasoo kalena dee qofkii uu qareenku mas-uulka ka ahay oo mas-uuliyadda ka qaaday haddii uu kiis kale ka galo isagoo kan ugu qoran iyana dhib bay leedahay marka meelo badan in laga soco ayay ku wanaagsan tahay cabdishakuur maxamed ismaaciil cabdishakuur السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ugu horreyn waan salaamayaa wasiirka waan salaamayaa aqoon-yahaniinta halka isugu yimi haddaan u gudbo su-aashayda hal su-aal baan ku weydiinayaa wasiir su-aashaydu waxa weeye marka loo eego guddida cadaaladda waxa weeye sidaynu ogsoonnahay dastuurka ku xusan waxay ka shaqeeyaan arrimaha garsoorka iyo cadaaladda marka guddida cadaaladdu shaqadooda markay intaa tahay wax allaaliyo wixii khilaafa iyo soo dhexgala garsoorka dhexdiisa iyagaa dhexdhexaadinaya sababtoo sidaas haddii wasiirka haddii isqabtaan ma leehay guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoore ka mid a bahda garsoorka dee gobollada ama garsoorayaasha wada joogaan waxa dhexdhexaadinaya waxa weeye guddida cadaaladda marka wasiir siday dastuurka laftiisa wax looga bedeli karaa arrinta ah in guddoomiyaha guddida cadaaladda uu noqdo nin ka mida garsoorka ama guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda sare siduu guddida cadaaladda u noqon karaa isagoo ka mida bahda garsoorka siduu guddoomiye noqon karaa siduu may u noqon karaa guddoomiyaha cadaaladda waan gartay guddida cadaaladda iyagu waxa weeye dhexdhexaantii garsoorka khilaafaadkoodii wixiiba iyo shaqadoodii marka isagu haddii ay dee isqabtaan garsoorkii sidee loo dhexdhexaadinaya isagiiba guddoomiyihii guddida cadaaladda ah su-aashii waad mahadsan tahay
bismi illahi raxmaan raxiim horta dastuurkeenna ayay dee ku qeexan tahay in guddoomiyaha maxkamadda sare uu yahay guddoomiyaha guddiga cadaaladda labada garsoore ee darajo ahaan kusoo xigaana ay xubno ka noqonayaan guddiga cadaaladda dastuurkeenna sidaa tilmaamay guddiga cadaaladdana wuxuu tilmaamay inay u xil saaran tahay arrimihii aan soo taxayey dee ama ilaa shaqo qoridda ilaa shaqa ka saarista garsoorayaasha maxkamadaha hoose dastuurku kumuu darin garsoorayaasha maxkamadda sare kumuu darin garsoorayaashii maxkamadda sare guddiga cadaaladdu uma xil saara hadday guddoomiye tahay iyo haddii ay garsoore ka mida tahayba guddiga cadaaladdu uma xil saara garsoorayaasha maxkamadda sare halkaasi waa luub hool yaallo weeye waa lakuna wax la odhan karo yaallo weeye sharci marka runtii dastuurkeennu haddii uu lagu sameeyo amendment meelo badan oo garsoorka saameynaya bay noqon lahayd inuu taabto wuu u baahan yahay dastuurka dib u habayn waan qabaa fikradda ah guddoomiyaha guddiga cadaaladdu inaanu guddoomiyaha maxkamadda sare inaanu noqonin guddoomiyaha maxkamadda sare inaanu guddoomiyaha maxkamadda sare inaanu noqon guddoomiyaha guddiga cadaaladda waayo waa guddoomiyaha maxkamadda sare waa hay-addii lala xisaabtamayey waa garsoorayaashii lala xisaabtamayey marka cid in guddoomiyeyaasha guddoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sarena ay soo galaan ilaalintii guddiga cadaaladda ay soo galaan oo guddiga cadaaladdu ay noqoto dad ka soocan maxkamadda sare iyo garsoorka intiisa kaleba laakiin aqoontii sharci leh oo waayo aragnimada guddoomiyaha maxkamadda sare oo kala leh ma garanaysaa nin lamida oo la waayo araga inuu noqdo oo dee garsoorayaasha iyo xeer ilaalintaba intaba ilaalin kara marka halkaa waxaan isleeyahay siduu u noqon karaa dee xeer baa dastuur baa sidaa yidhi dastuurka waajibiye laakiin waxaan odhan karaa waa laga habboonaan lahaa intaasaan kusoo waayahay maxamuud cali abakar weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka maqal dadkaaga haye maxamuud soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مقعي هو محمد علي أبو بكر مقعي هو محمد علي أبو بكر وحنا هاي قريقان وحنا كم ده أردنا ما حد كشغالها سنة نقل جميل سشالة مركا وحنا شعلها وسير كينا لو سؤال سكر الرعي كلي أنا نبغى هيستي سؤال شيء ركوبات وحق حيرك وسير كوكاد حيرك عقابة جود ayaan ka bilaabaya xeerka ciqaabta guud waxaa la sameeyey 1926 waxaan jecelahay inay kasoo wareegtay muddo 51 sannadoodii halkaa waxay nooga muuqanaysaa dee inuu yahay xeer aan iminka inala jaan qaadi karin oo aada u gaboobay xeerkaa qodobadiisa waxaa ka mid ah maxakamadu jurisdictionis wax la idhaha kala leeyihin awoodu ay maxakamadu kala leeyihin maxkamadda degmada hargeysa waxay leedahay jurisdiction tusaale ahaan waxay qaadaa dacwadaha madaniga marka la eegayo dacwadaha qiimahoodu yahay 3 milyan ugu badan yahay special cases way jiraan sida family looga waxa la idhaha oo kaas inta doonaha noqday ay qaado maxkamadda degmada waxyaabaha nasiib darrada ah ee xeerkaa ka muuqda waxaa ka mid a qodob la idhaaho qodobka 313 haa waa diin cayga waaye nasiib darrooyinka waaweyn waxaanu nahay dad islaama ayaynu nahay waxyaabaha aadaadka uga naxaysa masiibo anigu aan islaa waa masiibo qaran waxaa ka mid a wax la idhaha diin cay iyo ilaah cay dalkeenna ka jira nasiib darrada ka sii darani waxa weeyaan dalkeenu wuxuu leeyahay xeer dejin wuxuu leeyahay cid ka shaqaysa xeerarkan iyo dee wadda wasaaraddu waatanoo wuxuu iminka wasiirku noo sharaxay inay iyagu xeeran inay bilaabaan xeerarka oo ay biilar sameeyaan oo deedna u gudbiyaan golaha wasiirada sidaa darteed golaha wasiiradu usii gudbiyaan golaha wakiilada waxyaabaha nasiib darrada waxa xeerar ay ka soo saareen golayaasheenu xeerka mukhaadaraadka way ka soo saareen oo xeer baa jira la yidhaha xeerka mukhaadaraadka xeerka ku takrifalka hantida qaranka waxyaabihii lacaguhu waxyaabaha lacagta money oriented ayay u muuqdaan waxyaabaha ka weyn waxa weyn ilaah cayga diin cayga wax ka weyn maanta oo dalkeena yaallaa ma jiro wasiirka waxaan weydiin lahaa mana maqal maalin qura dhegahayga kumay soo dhicin shaksiyan kumay soo dhicin cid ka hadlaysa diin cayga ilaah cayga in xeerar lagu sameeyo
waxaa la geeyaa maxkamadda degmada haddaan iminka wasiir xuseen caydiid maanta wax ka sheego maxkamadda gobolka laygu qaadaya dacwadeeda sheekh xuseen caydiid baa ka weyn xeer ahaan ayaa ka weyn maxaan idhaahayey caayada markaa su-aasha kusoo dhawan waxa weeyaan wasiir marna ma isku daydeen in xeer gaara loo sameyo sida xeerkaa mukhaadaraadka o kale xeerka ciqaabta guud waxa ugu jira qodob ayaa ugu jira mukhaadaraadka haddana xeer gaara loo sii sameeyey ku-takrifalka hantida qaranka oo qodob baa ugu jira haddana xeer gaara loo sameeyey ma isku daydeen inaad xeer gaara marna aad idinku bilowdaan dabeedna loo sameeyo diincayga ilaa cayga ummadda lagaga saaro xeerka diincayga la idhaha qodob waa ka oo su-aaltaas su-aasheeda labaad maxakabaduhu ummad kastaa waxay leedahay dee garsoor ay ku dabafasho oo dee ay la tagto dacwadaheeda iyo dhibaatooyinkeeda innaga nasiib darro kalaa maxakamadeena taala maanta dalkeena waxaa iska yaalla wax la idhaahdo oo ka muuqdaba guud ahaan xataa wasaaradaha berigii hore dowladihii hore waxay ku badnaan jireen wasaaradaha kale laakiin maanta garsoorkay soo gashatan waxa weya waxaan la idhaahdo projectiska projectyada ay qaataan wasaaraduhu ay la sameeyaan hay-adaha la galaan iminka garsoorkay soo gashay maxkamadaha waxaa ka jira case management wax la idhaha case management qofka dacwadda markaad furanayso dacwadda faylkaagaad soo iibsanaysaa oo suuqaad kasoo iibsanaysaa faylkaaga dabeedna dacwadda faylkaasaa lagu fayl garanaya waraaqahaaga iyo documentiskaaga iminka hay-adda u n d b waxay keentay faylal faylasha anigu ka shaqayn jiray maxkamadaha muddaan kasoo shaqaynayay iminka inkastoon ka maqanayo aan ka baxay marka kuwii berigii dhawi leeriyey baan ahay wasiirku ka saaray shaqada marka waxaan jeclahay case managementka lamber baa gal kale keentay hay-adda u n d b galkaa faylasha laguma fayliya waa lagu sii dhex ridaa faylkan qofku sito number ba u samaysatay numberkii qarankuna meeshuu yaalla waxaynu nahay dee waxaa ka dhaca kiisas caara kiisas xun baa dhacday ayaa dhici kara imika sida kaa kufsiga oo kale oo dad lagu sameeyey innaga inaynu noo ahaadaan waxaynu waxyaabaha dee kiisaska saas oo kale inaan qarankeenu ilaashado oo uu ka ilaaliyo dee in dadka ajaanibka ay u baxdo waan kusoo dhawaanaya inay u baxdo dadka ajaanibka dee waxay wax important marka u n d b maanta uga waroon tahay waxaan aaminsan uga waroon tahay kiisaska waxaan jeedaa barojegyada noocaasa inay wasaaraddu inta u n d b yadu ka qaadato si indirect ay u n d b u yeelato marka waxaan ku weydiinaya su-aasheedu waxa weeyaan su-aasheedu waxa weeyaan barojegyada noocaasa inaad wasaaraddu kaantaroosho oo iyadu gacanta ku dhigto meel ahay wasiir maxaad uga qaban wasiirku ka jawaabi doona adiga hal su-aal ma ku weydiiyey maxamuud walaal intii aad ku shaqaynaysay garsoorka aad la shaqaynaysay ma ka hadashay arrimahan marka boqol jeer mar kastoo shir la isugu yimaado ka hadlo wasiirkoodna la fadhiyaan maalin maalin ka hadlo waan dhaafayaa taa su-aal kalaan walaalahay ayo ka su-aalahay ka mid ah kolley nabadu waa dhalinyar waanaan ka yara khibrad badan waa laga yaabaa in badan baan garsoor kusoo dhexjiyay muddo 5 sano baan ka shaqaynaya anoo arday jaacad hargeysa ayaa shaqada bilaabay soo daa su-aasha kalaan weydiin waxa weeyaan wasiir anigu gareeray baan ku shaqaynayay shakhsiyan xeerkeena shaqaalaha dawladdu qodobkiisa 7 farqadiisa 3 waxay dhigaysaa shaqaalaha eeda iyo biida shaqaalaha la yiraahdo haddii shaqada laga saaro waxay shaqada ka baxayaan markay ansixiyaan golaha wasiiradu su-aashan ku weydiin waxa weeyaan golaha wasiirada ma horgeysay eryeegi mise ma horgeyn hayo ma antaan ka doonaya mid kale aan ku yara daraya waad gar Allah sabab kullu in badan baan maanta baa igu horeysan meesha ka soo qayb galayno ma baayay marka waxaan doonayaa yara si yara wasiir su-aasha kale aan ku weydiin waxa weeyaan maxkamadaha hoose berigii hore financialku kaliya loo hay laakiin maanta waxa cad inaad xataa garsoorayaasha adigu soo magacaabiso wasaaradda soo magacaabiso halkii ka magacaabi jireen gudida cadaaladdu ee 10 qof ka kooban markaad iminka laba oo arday iska daba keentay oo gudidii cadaaladda keentay tii magacaaba waxay noqonaysaa inaad adigu soo magacoodo waxaanay saddex dhaarna weeyaan dalku oo gudida waxa weeyaan judiciary executive iyo waxa loo yiraahdo legislative saddexda branch dalku koobay miyaanay u eekayn markii hore adoo maaliyadoodii gacanta ku hay wasaaradda maxkamadii hoose maanta inaad garsoorayaashii adigu u soo magacaabayso su-aasheeda tanaawata wasalaamu calaykum raxmatullahi waana mahadsantiin dhammaantiin wasiirkuna waa mahadsantiin okay bismillahi raxmaan raxiim ma isku daydeen waxaad tidhi xeer mukhaadaraad baa la sameeyey iyo xeer ku tagrifalka hantida qaranka maxaa loo samayn waayey xeer lagula dagaalamo diinacayga soo sidaa ma ahayn anigu ma qabo in qodob kasta oo inoogu qoraan jiray xeerka ciqaabta guud in xeer gooniya loo sameeyo ma qabo waa lagaga baxayn dee haddii arrin kasta oo
uu inoo xusi jiray xeerkaa ciqaabta guud la-aan idhaahna aan xeer gooniya kelidii u samayno lagaga bixi maayo macnaheeduna ma aha sidaad u dhigtay labada xeer ee kale ee aad tidhi waa la sameeyey aad tidhi waa money oriented ama lacagun baa lagu doonayaa ka mukhaadaraadka dee lacag lagu dooni maayo iyaba shareecadda iyo diintu dee kasoo horjeeda haddii loo sameeyey shareecadda iyo diinta sida ilaahayga uu dembi u yahay ayaa in qofku khamri dadka siiyo ama waraabiyo ama ka ganacsada ama dalka soo geliyo uu dee khatar ugu yahay laguma soo gelinayo ee waa lagu mamnuucaya de in khamriga yimaada waa lagu mamnuucaya marka taasina ma qabo inay lacag ku doon ay tahay mamnuuca la mamnuucaya khamrigu waa la cashuuri lahaa dee sida jaadka haddii la doonayo in lacag laga helo dee sida jaadka la cashuuri lahaa waxaa taa xeerka loogu sameeyey in la mamnuuco oo aanu dee dalka soo gelin waxaan se qabaa guud ahaan in xeerka ciqaabta guud dib u eegis lagu sameeyo sidaan u sheegay waa xeer gaboobay dhowr iyo lixdankii baa la sameeyey dastuurkeenna wax badan baanu la jaan qaadayn duruufaha yaal baanu la jaan qaadayn markaan dastuurka leeyahay dastuurkeenna dee waa ka tilmaamay ee yidhi qodobka shanaad faqradiisa labaad waa taynoonaysa dhammaan qawaaniinta waxaa laga qaadanaya shuruucda islaamka waa in laga qaataa markaa dastuurkaa isagu ku salaysan shuruucda islaamka waa inuu ka baxaa dee xeerarka ay ka baxaan oo xeerkii maxaan ku dhahay ciqaabta guud uu ka mid yahay markaa dib u eegis buu u baahan yahay shareecaddii la waafajinayo marka shareecadda la waafajinayana dee wixii diincay ahaa waxay yeelanayaan dee tixgelintoodii iyo halkoodii bay yeelanayaan shareecaddu dee waafaqaya markaa taasi waa sida gacanta loogu hayo ayaynu u sugaynaa inuu xalkiisii haddii allayna kusoo baxo xagga mashaariicda maa wasaaraddu gacanta ku qabatay kala baxdo garsoorka horta mashaariicdani in hay-adaha dawladda laga caawinayaa waa wuxuun badi lagu dhisayo lagu tayeynayo waxqabadkooda waxaan imid wasaaradda iyadiyo mashaariicda qaar wasaaraddu ay gacanta ku hayso tusaale ahaan mashruuca la yidhaahdo mobile courtska ama maxkamadaha wareega waxa wasaaradda ugu yimid isagoo 3 biloodkii ugu dambeeyey markaa uu installmentkii ugu dambeeyey ay soo shubeen eroo aadii taa xigtay ee lala gelayay ama heshiiskii lagu cusboonaysiinayay in mashruuca la sii wado waxaan ku wareejiyey maxkamadda sare waxaan uga dhigaynaa inay iyadu ismaamusho hay-ad ahaan isu dhisto oo ay capacity-geeda dhisan karto oo dhisto ayaan uga dhigaynaa waanu wareejinay miisaaniyadda haddaad xustay adigaa hayana diyaar bay wasaaraddu u tahay habeen dhawada halkan ka sheegayay diyaar bay wasaaraddu u tahay inay wareejiso xeer hore oo aan ka hadlay oo wasaaradda lagu aasaasay baa ayaa hoos keenay xeerkii labaadna lama keenin ee dastuurka waafaqi lahaana weli lama ansixin oo gacantaa lagu hayaa maxkamadda sarena umay diyaar garoobin inay weelkeedii weli samaysato markay maxkamaddu weelkeeda u dhisataa baanu diyaar u nahay inaanu wareejino guddoomiyaha maxkamadda sare taa waa ka ballan taasi waa markay taagan tahay xagga maamulka magacaabinta garsooryaasha markay taagan tahay miisaaniyadda iyo maamulka shaqaalahaba ay taagan tahay halkaasaa wasaaraddu mowqifkeedu u yahay inay diyaar u tahay markay awoodo maxkamadda sare weelkeeda dhisato xafiiskii maamuli lahaa dhammaan maxkamadaha maamulkiisa inay ku wareejiso isla markaana ay lala ogaado oo ila wasaarad arrimo maaliyadeed oo miisaaneed qortaa ku og madaxweynea ku og maxaan ku dhaha xeer horaa ku og inuu wuxuu noqdo wareejinteeduna wax laisla og yahay haddii aan la yidhaha tan adigu aad magacaabso garsooryaasha taasi waa taa ereygaygii ma u bandhigtay golaha wasiirada ereygaaga horta anagu qofka xeerka shaqaalaha loo raacay xeerka shaqaalaha iyadoo lagaa soo warbixiyey oo ay kaa soo warbixinayaan 3 guddoomiye maxkamadeed bani weliba wixiisii ka soo warbixiyey boorkii wasaaraddana loo fadhiisiiyey waddadii ay lahayd baa loo raacay taana intaasaan ka koobaya xagga waxa cad inaad garsoorayaasha magacowdo sidaa ma aha magacaabista waxaa la guddiga cadaaladda tababar uguma jiro guddiga cadaaladda waxyaalahay qabatay tababar kuma jiro balka eeg dastuurka dib ugu noqo inay iyadu garsoorayaal soo tababarato ugumama jiraba hawsha wasaaraddu waxay awood u leedahay inay tababari karta dad inay dabadabad u diri karta iyo inay dalka gudihiisa ku tababari karto saraakiil ciidanka asluubta ah xaq bay u leedahay inay tababari karto
shaqaale la gelin kara garsoorka inay soo tababari karto shaqaale la gelin karo institutionska kale ee ama hay-adda dib u eegista shuruucda ama maxaan ku rahdaa institutionska bahda cadaaladda magacaabista cidda labaa leh waanu u tababaray lacagtii baa loo qoray oo miisaaniyaddaa loo geliyey intaba xukuumadda fulisay markay xukuumaddu taa soo fuliso magacaabista waxaa laga codsanayaa baahida way taallaa oo garsoorku meesha wuu yaallaa dadkiina waa loo diyaariyey magacaabistii waxaa loo keenay garsooray guddiga cadaaladda iyadaana shaqaalaysay waa la maray taasaa la maraya oo aan la-aanteed laga booday taasina sida ku dhacday waa sidaase wax wasaaraddu ay magacawday may ahayn ama dal dabadeed ha loo diro ama dal gudaha lagu dira wasaaraddu horumarinta ay hay-adaha ku horumarinayso waxaa ka mida inay aqoon kordhiso ama ay aqoon ku beeriso aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirku raalligaada hal magac on ka booday cabdikariim sheekh maxamuud cabdilaahi cabdikariim raalliga ayaad iga noqonaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والسلام يا مركورة وزير أحمد حسين أحمد عيديد. ولا ضدك وزير صوم سيقانا أنا وزير كواني شرعي قانا وبعض الشرعي قان كمده. حسين أحمد عيديد وبرنامج كما هذا مقال ضدك هذا ضدك وسوق بيا وبرشة أيوه مسؤولين تودس خار كنا أنا أدوان قوم هالنقيا. وزير وحنا بس سألود كويدي لها. waxaa jira sida uu dhigayo muxuu ahaa dastuurkeena Somaliland shuruucda wixii ka hor imanaya diinta islaamka muxuu ahaa waxba kama jiraan weeyaan boornaya marka waxaa meesha maxkamadaha hoose iska rabiyaacaya xeerkii madaniga iyo xeer dhaqameedkii iyo sharciga islaamka marka waxaa loo baahan yahay in la mideeyo midayntaasina waxa u baahan tahay in bahda cadaaladdu iska kaashato maxaa markaa idinka qorshaysan in la dedejiyo sidii loo midayn lahaa saddexda xeer su-aasha labaad waxa weeyaan dadweyne waxay aada uga cawdaan cadaalad darradana dadweynaha ka timaadaa laaluush bay dadku bixiyaan mararka qaarkood waxaa maxkamadaha kusii badanaya dad la baxay mukhalasiin oo doonaya waxaanay shaqaalihii maxaa maxkamadaha nahay waxaan ku fududeynaynaa sidii aad muxuu ahaa garsooraha ula kulmi lahayd iyagoo markaa laaluush ka qaadaya garsoorihii oo cadaaladii sugay laaluushkiina waxa ka qaaday qof mukhalasa oo shaqaale sheeganaya shaqaalahana sidayn la soconno shaqaale hoosaadka maxkamadaha waxaa maamusho wasaaradda cadaaladda marka maxaa idinka qorshaysan sidii mukhalasiinta meesha looga saari lahaa si cadaaladda uu garsooruhu sugay ay meesha u timaado بسم الله الرحمن الرحيم waa dhab oo dastuurkeenu wuxuu xusay in wixii diinta islaamka khilaafsani ay wax kama jiraan yihiin waxaanan qabaa in lagu dhaqmo taa oo aan weli wax diinta khilaafsan aan maxkamadaheenu xukumin maxaa idinka yaala in saddexda xeer ee isgarab yaaciya laysu geeyo runtii habeen dhaweedoodooda halka ka socotayna dooda lafteeda sidaa ahayde waxaa nooga meelayaan in la mideeyo ku talagalba maaha inay saddexdaa xeer sidaa isu garab socdaan wax lagu talagalay maaha oo wuxuun duruuf inugu keentay oo inala jitimi weeye runtii una baahan in marun wax laga qabto lasoo afjaro xeerkaa ciqaabta guud ee aynu dhowr iyo 60kii samaysanay dee xeer wuxuu ahaa markaa loo arkayay inuu intaba koobayo maantana ka ciqaabta guud aynu samaynaa wuxuu noqonayaa mid wixii ciqaaba kelidii kooba oo shareecadii waafaqsan oo dhaqankii ma garanaysa wuxuu ka qaadan karaa oo duruufaheena dee wadciga ah la jaan qaadi kara ayuu noqon doonaa kamadaynu sidaas leeg xeer waliba wuxuu isugu iman doonaa oo marka dee dib loo dejiyo wuxuu isugu iman doonaa inay saddexdii oo la isu keenay noqdaan shareecadii oo la waafajiyey iyo maxaan ku rahaa wadcigeennii oo imaka la jaan qaaday iyo wixii uu dhaqan ka xambaari karo oo ka soo xambaartay marka waxaan qabaa intaba waxa kulminaysa in xeerarkeennii aynu dib u eegano oo aynu runtii la dedejiyo waana ta dee aan horeba u sheegaanay guddiga dib u habaynta shuruucda xafiis baa u dhisan xafiiska inaynu hawshiisa uun dedejino oo shuruucda gacanta ku hayo
in la dedejiyaa baa lagama maarmaana runtii waananu isku dayey dareenkaana waynu gaarsiin doonaa haddii alla idhaa xafiiska taa intaasaynu ayaanu kaga bixi xagga mukhalasiinta bacda garsoorku sideedaba way ka duwan tahay hay-adaha kale dadka mar uun halkaa hawl ka galaa balnimayo u fiirsada institutionska kale oo dhan wixii shaqo ka galaa haddii mar laga eriyo dee suuqa iska galaan way ka baxaan meesha way ka baxaan laakiin bahda cadaaladdu ninka garsoore ka tagaa wax kalunbuu noqdaa kama dhamaado meesha haddii garsooraha laga eriyo ama waa qareen ama waa wakiil ama waa eeg meelo kale unbu horta kasoo wareegaa shaqaale hadduu mar soo noqday ya waxaa laga yaabaa oo shaqaalenimada laga saaro inuu un waxyaalaha aynu ka hadlayno uu dib u noqdo oo uu ku meeraysto uun intii marka horta mushkilad gaara oo haysata meesha weeyaano farsamadaa la bartay baan meel kale ka shaqayn karay ayaan meel kale ka shaqayn dabeedna qofku intii unbuu kula meeraystaa waxaan isleeyahay malaaka mukhaliska ah ee dee isagoon garsoora odhanin qof waxii keen ninka shacbiga ah ee maxaan ku dhahdaa nin meel toogan oo lacag yidhi uun ii dhiib hebel baa doonaye ama sheedba ka tusay isagoo waxba la ogeyn oo yidhi maaragta wa kaase ya sheed ka tusay ee dabeedna lacagta iskaga raraya muxuu ku ogaaday isagu in garsoora soo dirtay muxuu ku ogaaday hadduu garsoora soo dirtay inuu garsooraba u dhiibo mukhaliska muxuu ugu dhiibaya waxaan qabaa waa wax dhexoo meesha ka abuurmaye kacaynkaasoo kalena garsoorana sooma diranayo waana dee dunuub un ay tahay hadduu in wax laga qabto runtii institutionka ku shaqalena ay haddii ala idhaha inay dee aada ugu fiirsato hadduu garsooruhu qaadanayo iyo haddii a cid kale ku shaqaysanayso in la kala xaqiijiyo u baahan firo gaara inaynu yeelana unbaa iyana waajib noqon doonta waan ka baxay taana waayahay cabdiraxmaan maxamed xasan barnaamijku waa maqal dadkaaga dadka hawada nagala socda waxaanu leenahay waxaa nala jooga wasiirka cadaaladda mudane xuseen axmed caydiid cabdiraxmaan haye بسم الله الرحمن الرحيم وسيرك وسارة عدالة حسين أحمد عيديد يو وري ديقسي يو كسوق بقلياشا شرفت له وحنا كسلام يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال وحن ويدينا يا مرهرة وسيرك اللي ويديي أو سكرة أنا بقى وحويان وسير واحد شرايين جامعته إنه بحيان كالمضى أذيك شرعي دت خلاصيو isla markaana hay-adaha qaramada midoobay ee waddanka ka jira ay maalgeliyaan wasiir ma kugu jirtaa talada haddaanad hore usoo samayn ama haddii aad ilowday oo kaleod hore usoo samaysay ma noo sheegi kartaa in kaalmadaa ay bixinayaan jaamacaduhu laba lacagayuuna ay qaramadii midoobey laba weel inay ku shubayaan aada muddo isla waddankii ay tahay inaad wada midayso oo dhammaan wasaaradda ama ay hoos yimaadaan ama aada meel iskugu keento oo ay noqoto kuwaasina inay kusoo xidhmaan adeeg kaalmada sharciya ay wasaaraddu bixiso su-aashan qabaa wataa asalaamu calaykum waraxmatullahi waayahay waad maadsantay wasiir dhowr su-aalood ayaad ka jawaabi doontaa gabagabada barnaamijka waxaan jeclahay inaan israacino cabdiraxmaan abshir cabdi ma joogaa idinkoo soo koobaya hal su-aal ayaan jecelahay waayo stuudiyahan iminka aan fadhino barnaamij kale oo life ayaa gelaya oo isaga ayaan waktiga u banaynayna waktigiisiina way gaadhay marka waxaan jecelahay inuu su-aalaha oo dhan wasiirku marka wada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sacaadatu wasiir waan salaamaya sidoo kale deeqsi waan salaamaya bahda saxaafadda iyo marsharafka kale meesha ka soo qeybgasho kale anuu su-aalo badan weydiin maya laba su-aalood keliya ayaan weydiinaya wasiirka haddii la idhaahdo su-aasha koowaad waxay noqonaysaa mudane wasiir waxaa jirta in shaqaalahaaga qolada kasoo qalinjabida lowga kasoo qalinjabida facultka lowga bachelor degree sita ama master sita inaad iyo shaqaalaha kale inaad discrimination ku samaysay oo aad kala soocday oo matalan oo kale ninkii low kasoo baxay aad tidhi waxaa loo qorayaa mushaharkiisu wuxuu gaarayaa ilaa 3 milyan baan maanaya inaad gaadhsiisay 3 milyan oo qofkii kale degreega ahaa ee fakal kala soo bartayna aanu qaadanayn intaa oo for example oo kale qofkii degree qaatay shaqaalaha imika dawladda qofka eeday waxa weeyaan 840,000 kana wuxuu qaadanayaa 3 milyan buu qaadanayaa miyaanay meeshana oo wasaaradda cadaaladda dhamid weeyaan oo tii cadaaladda dee jamhuuriyadda Soomaaliya dhan u qaabilsanayd miyaanay imika wasaaradda matalan oo kale caafimaadka aanay odhan karin qofkii degree medicine
uu ka duwan yahay qoladii kale maaliyaddu maalin qofkii hadduu yahay business amba uu yahay qof economistia waxaa ka duwanaada dee oo xeerkan si xeerkeena 19aad shaqaaluhuna wuxuu sheegayaa in xeerka shaqaalaha dowladduna wuxuu sheegayaa in equal watan loo kala shaqaaluhu inay isku raad yihiin de ya equal job equal raad inay yihiin waa fahmay su'aasha qofka shaqaalaha su-aasha labaad weydiinaya waxa weeyaan mudane wasiir waxaad shaqaalada erideen 13 qof baan malay sanadkan ahayd baan filayaa 13 qof bay ahaayeen oo shaqaalada erideen marka shaqaalaha markii aad erideen sidee shaqaalaha loo shaqaalaha ma markii ka hadlay markii dhow maxamuud baa aynu ku jiraan malaynayaa shaqaalaha waad erideen marka sidii doonaba lagu eriyo laakiin si shaqaalaha process baa loo maraa marka dambe shaqaalihi waa la buuxiyo saan ognahay 13 qof waa la buuxiyay process baa jira de hay'adda shaqaalaha hay'adda civil service nidaamkii lagu eriyaa lama maray nidaamkii meelihii taa sidii doonaba lagu eriyo laakiin markii la soo buuxinay shaqaalaha 13 qof markii la soo buuxinayay waxa la sameeyay in shaqaale kale la iska soo qortay shaqaalihii nidaamkii lama soo maray waa in shaqaalaha dawladda soo mara waa in la xayisiya waa in imtixaan laga qaada waa in process la soo mariyaa dee shaqaalihii ay ku soo galaan meeshii marka processkaas muu jirin waxaa nagu maqaalaa inaad wasiirka iyo agaasimihiisa iyo guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha inay kala qaybsadeen baa maqaala sida la ogyahay marka maxaa taana ka oranay laba su'aal waa yahay waad maadsantay cabdiraxmaan maxamuud cali abakar waad hadashay maxamuud waayey laba jeer baad qornayd guuleed maxamed بسم الله الرحمن الرحيم marka koowaad waxaan u mahad celinayaa ilaahay baan u mahad celinayaa ilaaha amniga iyo iimaankiina siiyay intuu islaam inaga dhigay waliba nabadgeliyana siiyay mar labaad waxaan doonayaa inaan mahad celiyo wasiirka cadaaladda mar saddexaad waxaan doonayaa inaan mahad celiyo deeqsi marka xigta waxaan u mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan inaan u mahad celinayaa su-aashaan doonaya inaan wasiirka weydiiyaa waxay tahay sacaadatul wasiir sidaad og tahay dastuurka jamhuuriyadda somaliland waxa ku xusan waxaan la dhahdo separation of powerka ama check and balance-ka ayaa ku xusan sidaa daraaddeed qodobka aan kuu sheegay dastuuriga wuxuu sheegayaa in executive-ka iyo judiciary-ga iyo legislative-isku ay kala madax bannaan yihiin dadyowga reer somaliland inta badan cadaalad darray ka cawdaan cadaalad darrada dadyowga qaar baa ku sababeeya in separation of powerkaasi aanu shaqayn oo wasaaradda garsoorku aanu ka madax bannaanayn executive-ka marka ilaa iminka maxaa inoo diiday inaanu qodobkaa sharci exercise garayno oo aynu ka shaqaysiino separation of powerka aad mahadsanta wasiirka cadaaladda xuseen axmed caydiid ayaan ku wareejinayaa barnaamijkuna waa maqal dadkaaga su-aashaas waxay ahaydeen cabdiraxmaan xasan yes adeega kaalmada sharciga ee hay-aduhu bixiyaan ee institutionska kala jaadkaa geeyaan maxaa meel la isugu keeno wasaaradda loo soo wada gacan geliyo soo sidaa maahay su-aashu horta mas-uuliyadda guud waxaa le ee adeeg kaalmo sharci ah qarankeenu wuxuu saaray xukuumadda ka mas-uul ah qofka aan iska bixin karayn adeeg kaalmo sharci si uu u helo cadaalad siman uu u helo oo qofkii dee ka aqoon badnaa ama dhaqaale ku iibsan lahaa uu isaguna ula helo cadaalad siman uu ula helo in loo suurtogeliyo isna inuu cid dee u hadasha oo kaa ka aqoonta badan ama kaa dhaqaalihiisa ku iibsaday aqoon u adeegta inuu kana u helo aqoon sidaasoo kale ugu adeegta marka hore waa mas-uuliyad saaran xukuumadda waxa xukuumadda saaranna siyaalo badan ayaa loo maamuli karaayo marna iyadaa toos u fulin kartaa marna cid fulinaysabay ku ilaalin kartaa markaa dhowrkii arrinba waa inay wada shaqeeyaan matalan dawlad la ictiraafay ma nihin maanta caalamku waxa ay bixiyaan adeega ay bixiyaan miisaaniyaddeenna kuma daraan oo lacag inooma dhiibaan inagu aynu fulino ictiraaf la-aantaa keenaysaa hay-adahaasaa leh waxa la yidhahda direct execution ayay leeyihin waxaa laga yaabaa inagu inaynu dooran karro halkaa wax inoo geliya laakiin fulintii iyaga ayaa leh ictiraaf la-aantaana inta badan sabab u ah marka taasi markay sidaa u jirto ee ay hay-adi doorteen iyagu inay civil society-ga mariyaan maxaan ku dhahdaa adeegii kaalmadii ay bixinayeen adeeg maxaan ku dhaha kuliyadaha sharciga ee jaamacadaha iyo ururada qareernada markaa ay
fund ku siiyaan inay adeegaa bixiyaan wasaaradda waxa usoo hadhaya waxa weeye inay ilaaliso kormeerkii guud yeelato adeegii inuu halkii gaaray in kale ay ka warhayso wax kale oo uga furan ma jirto way lacagta ma xukunto lacagta halkaa maraysa ma xukunto waxaasaana dhibaatooyinka arrimaha aan sheegay baana inta badan sabab u ah xukuumaddu dhankay ka fulin karaysa waxa weeye sarkaalkii aan marka dhaweyd sheegayaan lahaa in sanadkan la shaqaaleeya laga yaabo gobolada midba mid la geeyo ee ahaa public defenderska ama wadoodaha dadweynaha dhanka kale ee ay dawladdu fulin karaysa waxa weeye maxaa ku dhaha qareenkii uu garsooruhu u magacaabi jiray qofka danyarta ah ee aan adeega iska bixin karayn uu magacaabi jiray kaasina waa hanti dawladeed weeye kaasoo inta badan la caalaqo oo la duro oo la yidhaahdo matalan garsoorayaashu waxay u magacaabaan dadaan ma garanaysa aan ku filayn adeega oo dadkii ku filaa dee lacagtaa xaddigeedaaba ku yaroo aanay qaadan karin arrimahaas waa arrimaha aynu doonayna inay legal aid actigu habayso sharciga kaalmada adeega kaalmada sharciga oo imaka gacanta lagu hayaabaa habayn doona sida loo wanaajinayo judge appointed lawyerkii ama qareenkii uu garsooruhu magacaabi jiray iyo kan wasaaradda shaqaalaha wasaaradda noqonaya siduu adeega u fulinayo madax banaanidiisa loo xaqiijinayo loo sugayo inuu isagoo madax banaan adeegaa fulin karo iyo adeegyada kale ee ay institutionska kala bixinayaan sida ma garanaysa ay ilaalinta guud ugu leedahay intaba xeerkaasaynu ka doonaynaa inuu habeeyo ma aha imaka waxaynu meel isugu keeni karno waxaan inoo ogolayn dee ictiraaf la-aantaabaan inoo ogolayn inuu hay-adaha ku qasabno inay miisaaniyadda dawladda wax keenaan wasaaraddu waxay qaban kartaa in wixii miisaaniyadda dawladda soo galay inta badan qabataa taana intaasaan ayaan su-aasha intaasaan kaga bixi lahaa su-aasha labaad discrimination shaqaalaha sharciga iyo kuwa kale oo uu inankaasi aada u sharxay uu leeyahay waxaa ku samaysan qaarna lacag qortay qaarna wax kaloo qortay taasi sidaa maaha wax siman bay helayaan haddii aan la yidhaha wax siman baa miisaaniyadda u galay wax siman baana helayaan haddii aan la yidhaha taas intaa kaga baxa e waa e b-na waa b c waa c d-na waa d ku qarac taasi sidaasay noqonaysaa shaqaalaha aada erideen brocesskii loo buuxiye lama marin waxaanu qabnaa in la mariyey oo inta badan garsoorayaashii ka soo qoray warbixintan kaaliyayaasha shaqada laga saaray ayaa soo qoray kuwa bedelayana badidood iyagaa soo qoray horta siday ku galeen kuwaasina waa sidaa waxaanay mareen hay-adda shaqaalaha brocessku waa hay-adda shaqaalaho in laga shaqaaleeyo waanay mareen separation of powerska iyo cadaalad darrada lagu sababeeyo inay taasi u sabab tahay separation of powers sidaynu u fahamno kelideen inay yihiin saddex institutiono oo kala go-an ma aha dastuurkuna sidaa uma dhigin dastuurku kala madax banaanida ah wuxuu ku tilmaamay inay hawlahooda u kala madax banaan yihiin hawlahana wuu tiriyey matalan tagarsoorka wuu tiriyey intaasoo hawlood bay leedahay buuri institution walibana hawlaheeda u madax banaantay buuri taas horta waa taa oo hawlo gaar ah ayaa loo madax baneeyey madax banaanidu kama maaranto waxa la yidhaha accountability ama la xisaabtan madax banaanidu kama maaranto waxa la yidhaha check and balance hay-aduhu mabda'a isdheelitir iyo is-ilaalin guud ayay saddexda hay-adood isku leeyihin waxaa idin tusaale ah madaxweynuhu waa the head of the state hadday cidila baxsanayso shaqo keligeed oy separation of powers kula baxsan lahayd madaxweynaha keligii la tegi laha golayaasha sharci dejintaa ilaalin ku leh haddii uu sharciga jabiyo impeachment baa halkan u yaalla ay xilkaba kaga xayuubin karayaan hay-addii sharci garsoorka ayaa halkan u taala governmental act ama xeer ay soo saartay inay nullify garayn karto ay odhan karto constitutionku kasoo horjeeda odhan karto labada hay-adoodba ilaalin bay ku leeyihin sidaasoo kalea garsoorkana labada kaleba ugu leeyihin ilaalin madaxweynuhu markanuu garsoorayaasha magacaabayo ama uu eryi karayo waa measure of accountability uu ku ilaalinayo xilgudashadooda eegada xilgudashadii baa lagu ilaalinaya
hadday xilka guddoomiyaasha maxkamadda sare ay ilaashan waayaan shaqadooda ilaalin waayaan madaxweynahay u taallaa inuu dareerin karo oo dastuurku siiyey inuu bedeli karo iskii magacaabina karo guddoomiyaha maxkamadda sarena inuu ereygiisa soo jeedin karo labada golo oo kulansanna ka ansixin karo markaa markuu soo jeediye uu madaxweynuhu yidhaahdo sababtaa darteed baanan guddoomiyaha maxkamadda sare xilkii aan u gartay inaanu sii hayn karin qoladani hadday ku raacaan labadii institution ee kale ayaa ka tashanaya in lagu hayiyo in kale waa ilaalin waa measure of accountability sidaasay ugu leeyihin baarlamankana sidaasaa ayay labada kaleba ugu leeyihiinoo xeerka ka soo baxana uu u ilaalinayaa garsoorku u ilaalinaysaa madaxweynuhuna fadhiyadooda iyo shaqada gudashadooda u ilaalinayaayo uu dadweynaha u bandhigayaaba in la kala diro u bandhigi karaa inuu kala dareeriyo hadday xilkooda gudan waayaan oo intaasoo kale fadhiiba waayaan shaqadooda marka waxa weeye hay-adaha separation of powerska waxaa la socdaa check and balance baa la socdaa is-ilaalin guud iyo is-dheelitir inaan midina noqon faruur dheeraatay oo keligeed la gaari waayo la qaban kari waayo la dabri waayo ayaa ilaalin loo sameeyey laakiin shaqooyinkay lahaayeen way u kala madax bannaan yihin mid waliba shaqadeeda waa gudanaysa waad mahadsan tahay wasiir aad iyo aad ayaad daawadayaal u mahadsantihiin barnaamijka maqal dadkaaga waxaa marti noogu ahaa wasiirka cadaaladda mudane xuseen axmed caydiid oo waqtigiisa noo horay si halkan dadweynuhu ay su-aal uga weydiiyaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa iyagana ka qaybgalayaasha kala duwan ee aqoon-yahanka ee nagala soo qaybgalay barnaamijka ee waqtigooda iyaguna noo horay sidoo kale waxaa mahadnaq gaara aan siinaya farsamo yaqaanada telefishinka qaranka ee isku dubariday barnaamijkan qabsoomidiisa idilkiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu